بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu barnaamijkan qaybtan ku soo qaadananaa waxaynu soo qaadanay qoyska iyo bulshada meelaha kale akhlaaqda dadka faafisa ama xoojisa ama dumisa waxa kamid ah warbaahintu kelmadda warbaahin ama iclaamka ama media luqadii la doonaha lagu sheegay marka iclaam la yiraahdo waa ogeysiin ama in qof warbixin loo sheegay warbixin loo sheegay baa la yiraahdaa iclaam marka waa gaarsiin waa hawlgal lagu gaarsiiyo dadka warbixino taasoo ka bilaabanta ogaanshaha xog la helay kadibna la mariyay dhammaan processka markaasi warbaahintu hay dhigatay la mariyay kadibna ay markaa qofkii ay gaadhay taas oo qofka ku noqonaysa warbixin cusub xog cusub oo qofka loo kordhiyay ama markaasi xog uu si qaldan u haystay oo sidii saxda ahayd loogu sheegay marka waxyaalaha mass media inta badan loogu talagalay waxa kamid ah inuu gaadho audience ama dhageystayaal aad u fara badan warbaahinta kala duwan ee adduunka maanta ka jirta ee magacyada kala duwan leh ee dhowrka nooc ka kooban mid taabacan mid la daawado ama mid la daawado mid la dhageysto iyo markaa tan cusub ee la yiraahdo social media oo intaba iyaduna iskugu jirta dhammaantood waxay u xusul doobaan inay helaan dadka ugu badan inuu midba ay gaarsiiyaan saas darteed bay saameyn xooga ku leeyihiin akhlaaqda cidda ay wax u sheegayaan waxa loo dhigay qawaaniin fara badan ayaa loo sameeyay oo ummaduhu u sameysteen markii ay warbaahinta ay u sameysteen taas oo ah haddii uu ka soo horjeedo contradiction haddii uu ku sameynayo ama uu duminayo qiyamka iyo akhlaaqda hay ummadda laga dhex baahinaya leedahay in aan la baahin karin saas darteed baa loo sameeyay markaasi qaybaha istaba yaala ee editorialka loo yaqaano tafatirka iyo markaasi qaybaha kale ee la xiriira oo iyaga laftoodu dad fara badan ka kooban marka maxaa la yiri qiyamka iyo afkaarta qofka ayuu meediyuhu u saameyn ku leeyahay waxa kale uu saameyn ku leeyahay dhaqdhaqaaqiisa maalinlaha ayaa meediyahan xooga ah ee imika uu ku leeyahay waqtiyadii hore marka dib loo noqdo meediyuhu uu koobnaan jiray waxaana warka la siin jiray uun dadka in kooban iyo inta go'aan ka qaadata bulshada inteeda kale markay is aragto bay wax iska wareysan jireen markay is arkaan bay wax iska wareysan jireen Soomaalida marka dib loogu noqdo wararka waxay isku gaarsiin jireen goobaha isku yimaadaan ceelasha ay ka waraabinayaan ama xoolaha ka waraabinayaan ama dhaanku u yimaado golayaasha ay gartu ka socoto ama inta meel wada degani meelaha ay ku kulmaan intaas bay berigii hore warka isku gaarsiin jireen innagoo ah marka Soomaalida xoolo dhaqato ayaa waxaynu galnay noloshan casriga ee magaalooyinka nolosha casriga ah marka waxay soo minguurisay soo rartay meediyihii marka adduunka intiisa kale uu isticmaalay marka waa lagama maarmaan in markaasi meediyahaasi uu saameyn nolosheenii oo dhan oo ku sameeya arrin lagama maarmaana ayay noqotay meediyuhu awood sixri ah magic ah ayaa wuxuu u leeyahay inuu markaasi si degdeg ah ku dejiyo maskaxdaada dambe informationka uu maalin laha uu ku siinaya in maskaxda dambe ay degaan dabadeedna wuxuu si yaro fudud kugu beerayaa afkaar aanad iskuulna ka soo helin gurina ka soo helin bulshada inteeda kalena aanad ka helin ayuu kugu beerayaa kadibna waxay ka muuqanaysaa noloshaadii maalinlaha ahayd ayay ka muuqanaysaa waxyaalaha media ay ka waramaan waxa kamid ah khibrada media dadka aragtidooda qaab fikirkooda ayuu si degdeg ah ayuu wax uga bedelaa oo marka macluumaad ama hal information intaasoo angal laga tuso intaasoo cisho lagu celiyo intaasoo yool iyadoo laga leeyahay lagu siiyo marka dambe mowqifkaagii aad aaminsanayd waad ka tanaasulaysaa haddii aad xataa aanad ka tanaasulin waad yaraynaysaa dabadeedna halkii uu markii hore ku taagay hadduu markii hore number 1 ku taagnaa number 5 ama 4 abaad dib ugu celinaysa maxaa sababa in mowqifka ama principalka ama mabda'a aad dib uga dhaqaaqdo
waxaa sababaya miidhiyihii dhinac kasta kaa tusay ee angal kasta ka istaagay dabeedna ninka editorialka ninka editorka ah ama tafatiraha ninka tafatiraha iyo kooxda inkastoonu qof ahayn ay kooxdada yihiin kooxda tafatirayaasha ahi waxay culayska saaraan telefishinkay ka waramayaan ama idaacadda ama wargeyska ay haystaan falsafada akhlaaqdiisu ay ku dhisan tahay aragtidiisa siyaasadeed dhaqaale ay ku dhisan tahay ayuu had iyo jeer wareerkiisu ay u baxayaan markaa waxaad dareemaysaa falsafada ka dambaysa dhammaan wararka oo dhan waxay marayaan falsafada ay editorialku hay u sameeyeen that's why marka telefishin la sameynayo ama warbaahin kale la sameynayo ay markaasi qiyamka guud ee wadanku leeyahay qofku inuu saxeexa ay tahay u sheego ay tahay uu yiraahdo qiyamka guud ee dadkaasi leeyihiin ayaanan qiyamka waan ilaalinayaa diintooda aan ilaalinayaa waxaan ilaalinayaa wax kasta oo mujtamaca iska horkeenayo duminaya ayaan ka ilaalinayaa waxaasoo dhan baa qofka qawaaniintoodii loo dhigaya laguna xisaabinaya dalkana waajib bay ku tahay iyo dadku in lagu xisaabiyo qofku haddii qiyamka uu ka gudbo waajib bay ku noqonaysaa waxa kaloo uu kugu beerayaa qiyam iyo akhlaaqiyaad aanad lahayn ayuu kugu beerayaa hadday doonto qiyamkaasi waxay lid ku yihiin warbaahinta qiyamka ay beerto wuxuu lid ku yahay manduumada akhlaaqiga ah ee bulshada uu ka dhex hadlayaa ay leedahay ayuu hadduu doono uu lid ku yahay dadka ugu badan ee miidiyuhu u saameeya waa dhalinyarta iyaga maadaama caqligooga uu korayo maaragtay aanay fursad badanna u helin inay guideline fiican ay markaa iskuullada ka qaataan qoyska ka qaataan mujtamaca guud ay ka qaataan oo qiyamka guud lagu barbaariyo si fudud bay dhibana ugu noqdaan miidiyahan casriga ah ee iminka jira daraasado badan oo la sameeyey waxyaalaha lagu ogaaday waxaa ka mid ah in bulshada uu ku farabato cunfiga dagaalka iyo dilka iyo waxyaalaha la xidhiidha oo ku farabato taasina ay sabab u yihiin barnaamijyada telefishinadu ay sii daayaan gaar ahaan barnaamijyada maaragtay filimaanta aflaamta ee maaragtay la turjumo ee dadka afafkooga loo soo turjumo faraha badan leh waxay khatar ku yihiin qiyamka iyo akhlaaqiyaadka waayo bulsho kale oo qiyamkeega iyo akhlaaqiyaadkeegii baa loo soo raray marka 300 oo xalqadood ama 100 xalqadood ama intaasoo 100 oo xalqadood la turjumo ee si joogto ah qofku gurigiisa ugu daawado maalin kasta 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama saacad uu gurigiisa ugu daawado waxay ka dhigan tahay galaas u xaadirayo waliba galaaska hal macallin baa hortaagan waxay kaga duwan tahay waxa la geenayaa qofka intaas oo meelood oo kala duwan deedna isagoo ka xiisa goyn eegidii iyo daawashadii telefishinka ayaa barnaamij ka dhawaanay deedna waxay sabab u noqonaysaa inuu maalinta dambana u diyaar garoobo ayay sabab u noqonaysaa daraasado badan oo la sameeyay waxyaalaha yidhahdaan waxaa ka mid ah dagaalada dilka isdaldelka iyo in nafta qofku iska jaro iyo maaragtay cabsida dadka ku dhacda intuba waa door weyn oo maaragtay hay beereen warbaahintu hay beertay qofku wuxuu daawanayaa u dhageysanayaa qoys isku xumaaday tusaale ahaan film musalsal u daawanaya qoys isku xumaaday buu daawanaya innaka ka muslimiin ahaan ama ka Soomaali ahaan in gabadhu ay ninkayga khiyaamayso waa jariimo ay bulshadeenu u taqaana laakiin markuu caadi qofku isoo gurigiisa iska joogo sanad u daawado intaas oo musalsal gabadh uu nini qabo nin kalena ay jeceshahay deedna qofkii qiyamkiisii maxaa gelaya dhaqanka noocaasi inaanu wax weyn oo dhiba aanu keenayn ilmaha yar carruurtii baa la daawanaysaa waalidka inantii baa daawanaysa hooyadii baa daawanaysa waxa daawanaya wiilkii baa daawanaya dabadeedna maxaa dhacaya waxa dhacaya in qiyamka ay qaataan haddii markaasi gabadhaasi ay ku ogaato ninkeyga hadduu ninkaasi ku ogaado gabadhiisaasi inay khiyaamo samaysay filinka waxaa laga yaabaa inuu dilo oo mu'aamaradu sameeyo dilo gabadhaa daawanaysa ama ninkaa daawanayay saamayntii ku samaynaysaa waa maxay haddii ninkeyga ama markaasi dee odaygeyga ama xaaskiisaba dhacdooyin dhib badan oo xanuuniya damiirku u dhex maro in si fudud ay uga takhalusi karto dabadeedna jariimooyinkaasi bulshada mujtamaca ay ku fara badanayaan marka iclaamku waa dib bulshada ku soo korodhay
dhinaca kalena waa faa'iido bulshada kusoo kordhi lahayd haddii loo hogaamiyo iyada oo xayndaabka guud ee akhlaaqda dadka meesha wada degan la eegayo insha Allah halkaasaynu kasii wada doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber